gadeedii gorayoy gabalku dhac gorayoy gabal soo sula godgoda dhaqandaduud buuran sidii diin qaba ku jira yaa waayo waxa gabal u dhacood sheegayso 2018 sanadkan dhamaaday wuxuu noqday baa liiray gabaldhici maamul goboleedyada war maamul goboleedyada waa jiraan adaan waxba kala ogeyne waa gabaldhici golihii iskaashiga maamul goboleedyada ariyaa soo gabalkiisu dhacay hadeeran barabneenan xaaf gudoomiye uga dhigne aad ka dhigaysa waa qaraabahaynaadi xaafayba eedeen wareega awowgii la gubiye golaha iskaashiga maamul goboleedyada waxa lagu sameeyay ama lagu dhisay Jubbaland waxaana martigeliya shirkooda al-Sayyid Sheikh Ahmed Madoobe gabalkoodii yaa dhacay waa wareeydiin soo dhiibtay nabad iyo nolole nagala taga sheekada hadeerna waxaa dib loogu soo cusboonaysiinayaa dhuusa mareeb waxaana martigelinaya al-Sayyid Sheikh Maxamed Shaakir war nin gabal u dhaco iyo nin waa u baryaba Soomaalidu waa isku dan waxaana la yiri wadamada adduunka iyo bulshada dana wadaagaysa ummadiba waxbay weeshataa waardiyeeyana way arag dan soo waaridiyo sheekh wardiga haysta wabar iyo ugaas iyo bulshada wiilka soo koraya wadar baanu nahay ruux kasta waajib leeyahay marka waxaan ku talin lahaa dhinac kasta iyo qayb kasta inay waajibkeeda ka adkaato oofiso warkaada waxaan u fahmay Daesh iyo al-Shabaab waajibkooda ha gutaan oo dadka aad hawlaayeen ilaa waajibka loo saaray ma naqaane horta shabaab iyo Daesh waajibkooda xasuuqa inay fushaayaan waaba hubaahe dawladda iyo shacabka yaa waajibkooda u gudaahe ardagoonka kana dawladda waajibta inuu gudaas banaanka yaala sababtoo ay qara hoobadhiye waana ambaaraynayna waan fashilinay yahla teeganyin shacabkana waa bagara hadii waajibka gudayaan ayaa sidoo waajibsho gaalka la dilaayo baayaydu waa kada ku laqiine sidee baan u galaa sidee loo galayaa gafuurkiisa baleeg annaga garanayna hal laga daayo gumaadka almiina hadaan laga day karin alla khafiifiyo warnimayaanu waxaan dhihi lahaa qarannimo abaadaan rabnaa inaan aloosnaaye qof kastoo isbaaro u dhigtana waan abhinaynaaye dadkan waa ul iyo diir haddaad kala eryaysaane awrkacsigan qabiiliga ah iyo oohintiya wayda iska daaya lama arag waxaad ka istafiideen qarannimo abaadaan rabnaa inaan aroosno xaad aroosee qarannimadu dadkaanay ka dhaxaysaahe qoladeed aheedeen idinku war qaranku ummaduu ka dhaxeeyaaye digtaan iyo damtaan iyo balaayadan hanala ka daayo wadaayay dooga eedaan goradi dada bariisyo arka darta fado haytamaan way ko weelna aryaadaha anigu war haddii layska yeelaa waxaan dhihi lahay mudaadaadkan la soo diile ha laga daayo damdamtan mudaadaadkan la soo diile ha laga daayo damdamtan haye waryaaraheen maanta gudoomiyaha maxkamadda sare wuxuu yidhi 3 qof oo maxkamadaha intay ku qanci weysay shabaab u dacwootay xabsigaanu soo dhignay cidii dambe u dacwootana raadkaasay qaadayaan waana la soo xirayaan marka cadaalad haddii la waayo dadku meeshay cadaalad ku tuhmayaan saw la aado ma nimayow cadaalad shabaab laga doonay cimrigaa go'a la yidhaah nimayow waxaan la yaabanahay xoogga lagu soo xiraya dadka shabaab u dacwooday ma maxkamadda shabaabka lafteeda lagu soo xiro war kuba ha yaraadee niyo waxa ogtahay ma jiraane maxkamadda shabaab xabsiga dhex ma qaado ahey miskiina miskala fuulan leh waay taas waxaa la yidhaa cudurka daawey jeermiskow ka dhalahayana ka leexleexo muga haddii maxkamadii laga baqay in dadkii la soo xirxiray tagto xal laga dhigay warnee waxaan la yaabay dadka guryaha dhisanaya ma daalaan shabaabna qarax kama daalaan war dumiya dhalintii dhisi lahayd weli may dhimane adee shabaab waxay dumiyaan haddii laga tegi lahaa magaaladu cidlay noqon lahayd marka toodu socon mayso warnimiyo aniid warsiin haaya baydhawajanaay hata ka hor sheemadeer madgaab aliyow yadlanka usoo sajuudka jira taraawihina tukudow habad madaga garafku ku sii usiina geeka lankidadil waldee walari daayingay dilana walduuge usadadma dilnehe geeka waldili usiina meeli binaange daagaysan goradaasan buurka baalisa garab
garaf lakukusiyay fifaniini reed may antaas iindheera lankolansa judad bahay lankii kasaga jaami aaqir wala haysada warmadii saaqow maddheerow iyo madgaabow waaba isla dhasheena maxay isku dileen waxay isu dileen aryaa dhirirkana leesuma ogola gaabidana leesuma ogola warnimayo anigu waxaan la yaabanahay beelaha ku dagaalamaya hiiraan maxaa sagteeda madaxweynaha hirshabeelle weli kama uusan hadal madaxweynihii hore ee hirshabeelle cali cabdulaahi cosolona isagoo ka qiiraysan ayuu yidhi dadkan ku dagaalamaya walaalaha waa in laga hortagaa maamulka hirshabeelle inay mas-uuliyadda saaran tahay buu yidhi marka nimayo waxaan la yaabanahay waana dagaalku inuu sii waara miyuu doonayaa war soomaali ma taqaanide hadba kii kursiga ka maqan baa qiiraysan dagaalka ka dhacaya ka xandhaale meesha la yidhaahdo ee ku taala xuduudda u dhexaysa etoobiya iyo soomaaliya ee gobolka galgaduud ka tirsan beelihii dagaalamaya waxay dhaheen etoobiyaan ayaa dagaal ku jira waa soo qabanana way dhaheen marka anigu waxaan la yaabanahay goormaa etoobiyaan soomaali ka mid noqday mise waa laysku been abuuranayaa aryaadhaha anigu waxaan la yaabanahay dadka kaxarku kor dirira kaxarba wausan ahayn kii hadda ku mudo xanuunka badnaay hayse ku dheefayaan hadday haddaan isku dilaan kaxar mudaaya anigu waxaan kaloo la yaabanahay etoobiyaan baa dagaalka ku jira kuwa dhahaya war soomaalida hadday ayadii isdilayso etoobiyaan xaguu ku daynayaa war dagaalka ka xandhaala intuu socday laifaa lagu jiray marka waxaan la yaabanahay ninka laifka soo gala dagaal kuma jir miyaa war qoryaha liifkooda ay kaamira iyo internet-ba ugu xidhan yihiin boowe war idiin sheegaya doorashada puntland wakhtigeeda aa dhacaysa shaqaalaha nabad iyo nolol iyo kuwa dawladdan u shaqeeyana inta doorashadu ka dhacayso ma iman karaan agteenna boowe waxaan ka digaynaa inaan cod la siinaynin anigu waxaan la yaabanahay musharaxiinta puntland 30 bay gaarayaan xildhibaanada puntlandna waa 60 qofkiiba 2 codaa ku aadaysa marka ninkee madaxweyne noqonaya war galmudugba 2 madaxweyne leedahay inay 30 madaxweyne yeeshaan yaa ka reebay warna miya wani warsiin haaya maroodo banhabayi barambaal magarya waleeri madaxweynagi kan u subanaay lafta gareen geeka mayba booqashada horayti kasaday gobolka lilay hudur reed may su'aalo khudbada tidii hore may baka jartay xamar ilaa iyo baydhabo lugwa in lagu tagaa yari maayta ma gorda ogdaad reed hiraabtun dayurada koray masluti u sheegay ka bahi war diyaarin seerin oo dhulka arka u dhaxaysa mu koray aryaadaha baarlamaanka bariga waa furma war awal yaa xirtay arinaga shibda qandhawaja cadaada leh warkiiga dhagayso gudoomiyahana waa qudbeeyay wuxuu yiri khilaaf wixii jira waa la xalliyay casharna waa ka baranayuu yidhi muga waxaan warkiisa u fahmay waa ku wareerna taase u naqmayno mukale waa ku saxan yahay inuu casharkaas qaato qofay khayrays qabtaana inuusan sii raagin waa la ogaa wadaa warkun adakaadali warkii ay qadiijo waay may artay ay qadiijo libee lama ma hoo jiroona qayruu waarti war ayaantan suudaan waxaa ka socday mudaaharaadyo rooti qaaliyoobay ka bilowday maalmihii dambena siyaasada isu bedelay maalmihii ka sii dambeeyeyna madaxweynuhu hadhaco isu bedelay marka xanta hadda soo baxaysaa waxay leeyihiin albashiir waa iscasiilahu yidhi kursigeena ra'iisul wasaarihii isaga uu afgambiyey saadiq almahdi ayaa rabaa la yidhi aryaa rooti qaalooba haddii madaxweyne u dhacaayo ilaahow aan muufadu nugu qaaloobin maysiin warsaday umur albashiir wiina habadarootee le indhiyey suudaan iyo soomaalidu waa tol iyo saaxiib war shacabka suudaan waxaan la yaabay rooti ay u banaanbaxayaan annagana mooshinaan u banaanbaxaynaa waryaa dad la rabo iyaguna israbaa rooti u banaanbaxaa innagu dhiiggaan ka banaanbaxi laadha waryaara dalkeenna inaan baddaatano waajibay nagu tahay muqadas war guryaagii dharaaga dudumi inoo la dhisa muqadasu aryaa dhisaayo horta kalamaanee ii warrama yaa raadiya maanahay ii warrama maxay tahay war helaa tala helaa la yidhi warka lagama maarmee maxaad akhbaar haysaan noo warrama kushkushabsiya laari walaay gajar yoo bahabahaayana lankiniin warmaari usi warhaaye ku dhagansinen ruuxii dabaashaye dardarsaday xumaantee duufkiiyo xalaashii kala dooran waayee ka durdurta ceebtow dadku way isku soo noqon kabta kana madaynaa sheekada lagu daro waxaan maqli jiray waa leesu soo noqoney wixii nool adduunyada nimayaa waxaa la yidhi in kastoon adduunyada walaac goorna laga waayin wadka ruux walaalay
waaye ma jiro lagala waabtaaye ajal iyo wakhtaad leedaho waxayd kuu qoraye hawalweli nafteeday xaq baad u heshanaysaa warnimada waxaa la yidhi wixii loo dirtiyo waajibkaba kii isaga weecda waaba ay qaraar iyo dadkana dacar waraabsiiya waraabaha markuu daajo iyo weerka hilibkeeda waalkeed markuu kala haroo meel warra'a geeyo waxaan nahay daduu woodka xiga way kan leeyahay taariikhdu dadkay bartaa dunida waayeed ninna ma diido ninna ma doonto aryaada waxaa la yidhi markaad ina adeerkaa xun iyo tuug u ololayso ummaddana qabiil aawadiis ugu afduubayso ayaha dalkiisaba ninkii iibsadaa tahay jawaankii maan dhex jiifana jugaa dhacdo jidka xirme jawaankii maan dhex jiifana diibaa ilowdaye waxaan dhihi lahaa kuwa aad jawaanka ka gashay xaruntii dalkaagiiyo markaad xamar ku duulayso caasimad xaggeebaad ka dhigan leesma xaasido war duulo horta dada jira walaagaynu danangoradaan iyo dumisangoradaayan dalkuna dalangoradaanon iyoona duurka kajeel daayin ilaahee ka magangalni dufka bohooyinka talla mahayno maantii taagna timaado nin waalidkiis oo dhibayne tiis mehelaayan idhahiixatay ka tahay warnimada aroor waa baryaba waxaan soo xusuustaa kelmaddii cabdulaahi suldaan tima cadde gabagiisii ku jirtay dugsi male qabyaaladii waxay dumisa mooyaane waxaa iigu daran xilliga hadda aan ku jirro dadka duurka isku dilayay dadkaan la hadlayaabaan lahayn duxiya iimaane caqligaa dabool laga gelshaa duul haddou lumi miyaad uga jeeddaa war waxaa la yidhi garashada basaastiyo aqligaan baraarugin kama bayro xumaane beelahaan isdilayow bakhtigiiyo qabyaaladda lama baran miyaa weli maxaad belada ka heshiin warnimiyow ba'nay hoognay bug i bilaayimaniindhimana kiidan bukun baansinaan kiidana badbaadayna nibadka baryoy ayaantaa ninna waa u id igaarna iligna ku tahaye war uudi haddaad ku dartay aqoonteedu soomaali waa inay is-eedaaye ushakay u dhiibtaanba waa la aflagaadayne midkii qaran u aasaasayay wada inkaaraane iilkooda kii qodayay bay wada addeecaane isku maqan allow sahal tashigu waa keebarkeed maya hore waxaa loo yidhi isuma taliso ismadhaantay dhashaa ismadhaantana ismadhaxashay dhashaa warnimayo war baan idiin hayaa guddigii buuqa badani ka dhalan jiroo maaliyadda ee arbacay dib isugu shaandhaysay isla arbacadii bay guddoomiye u doorteen wiilkii ugu da'da yaraa hadda wasiirkii dhima jiroo cabbaas siraaji oo 30 jirka ahaa kii ka yaraa ee 20 jirka ahaa ayay guddoomiye ka dhigteen wiilka yar aad sheegayso guddoomiyaha laga dhigay maanta bayluu shir guddoomiyey wuxuuna yidhi beese waxaad qirsan tahay ayaan baarlamaanka horgeynaynaa yaraanta yaa laygu yasne yaxaas madoobaan ahaye war wiilka yaxaas ma ahe waa yaraankii nabaddii nolol aryaadhaha war ma haysiina garoowa shaybaaraa laga furaa la yidhi waxaana lagu baaraa musharaxiinta wixii nabad iyo nolol xariir la leh ilaa iyo haddana dadkii la baaray waxaa laga ogaaday lama nabad iyo nololuhu inay musharaxiinta garoowa joogta ka mid yihiin midna ou hadda soo socdow jidka ku soo jiro hadda cabdiweligaas waxau yidhi boowe lama yeedhi kara arrintaa kuwa garoowa jooga la garaye ka soo socda see lagu ogaaday yaase baaray waralla wili reer baadiya ta baawurkaada kashaani wili may dhigna aranti elektroniga aan isbedeli dadka iyadoo diyaaradda saaran shaybaar la saaro hay waraadhaha buntland shaybaar inay isku wareerisa maba ahayn wasiirka gaashaandhigga inuu u yeertaan bay ahayd asagaa dhihi lahaa annagaa wadanne warnimaya horta anugu musharaxaan ahay haddaad ii dooratiinna waxqabadkayga waxaa u horreeya khudbad waxaana u dhexeeya khudbad waxaana u dambeeya khudbad aryaa maalin kasta dadka khudbad jimcaad miyaad tukihe war anigu musharaxaan ahay intaad iga dooranaysaan wax badan inaan idiin qabanayaan idiin sheegayaa maalintaad ii doorataan eedda idinkaan idiin saarayaa oo ummadda ayla shaqay weysaan dhahayaa war musharaxa ahaa idoorada saliid maasirida waraabasaana runka sugo baabuurkiisan kor lahaytan diyaarada siinka weelay runka sugo eel shidaal ahoo nafti i bansiin aho siingoday waana runka sugo waddooyinka dhan siin nadiifiyey waana runka sugo war aniga musharaxaan ah dawladda aan hadda jirtina waxay ku fashilintay amniga iyo waddaxiris sidaas darteed haddaa ay doortaan si aan amniga wax u qabto waddooyinka dhanaa xiri doonaa hawsha aan dadka u hayno hadalka ugu weyn biyaan saliidka dhigaa aan basareeha ma baabkay la geli karaa waxaa la yidhi hunnuhunnu hadal maaha
hadal maaha himbiriirsi wax arag maaha leeskama aadan fahmin haadu waa kor dhaban tahay ayay ahayd war isbitaalka banaadir wasaaradda caafimaadka gabadhii la keenaaba maxay uga waalataa hadda ka hor waxaa maaro looga waayey maryan qaasin weliba qalab isbitaalka loo keenay meelow cirib iyo jaandhigaa la waayey shaqaalihiisana ilaa hadda mushaar lama siiyo gabadha hadda wasiirka caafimaadka ee fawsiyane waxay tiri isbitaalka madaxdiisa iyo shaqaalihiisa markii la eriye kadib ayaan maamulaynaa marka gabdhaha wasaaradda caafimaadka iyo isbitaalka hooyada iyo dhalaanka ee banaadir maxaa kala haysto waa runteeda meel haddii madax lagaaga dhigo shaqaalihii horeo joogay baa la kala eriyaa kuwa cusubaad adigu wadatana waa la keenaa warnimada waxaa la yidhi midho guran midho geed ku yaal looma daadiyo aryaha isbitaalka banaadir walee ma joogo dictor cabdirasaaq xasan cali ciddase ka aqoon badanoo la keenaaya yaa waaye had walba qofka adigu wadata aqoon leh aan minaysaas tahay heemoogi warwar ma haysana sayid sheekh axmed madoobe madaxweynihii jubbaland cabdalla biroole meel la yidhaahdo u tegey ciidankiina waa u soo qudbeeyey odayaashina waa isku sawiray asoo shaay lacabaya warnimayow dawladda maraykanku waxay tidhi muwaadiniinteennu soomaaliya ma tegi karaan sababtoo ah amni kama jiro marka waxaan la yaabanahay ayagaanba amni ka sugaynaye waa maxay amniga kaloyna weydiinayaan ma duqayntay joojin rabaan war muwaadiniinta maraykanka oo aan soomaaliya imaanaynin madaxweyneheenna ha laga reebo galgalataal gaaja magooso gabaldhaxmaa geed la konaa naga tag ununka cawadii korka ka seexa jirna geedahee war madaxweynihii maraykanka war maysiine dhuumashow ciraaq ku tegey hadda donald trump asagoo baqdaad ku dhex sawirranaa la arkay war ciidankii macawisley ee shabaabka la dagaalamayey waxay dhaheen dawladdu nama taageerto sababta ay noo taageeri weydayna waxaan u malaynaynaa haddaan shabaab ka adkaanno inaan jabhad cusub noqonaynay u maleeyaan war hadday shabaab ka adkaadaan ayagaaba dawladaha maxay dawladdu qabanaysaa ma shabaabkaa la taageerayaa marka haddaan cidda la dagaalamaysa la taageerayn war walaala diidanyaaba inoo shabaabka laka adkaadu adaa moogow hurde soomaaliya waa mashruuc 10 jeeraa laydiin sheego oon laydin lahaa shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaane war kalaan idin hayaa xildhibaanadii madaxweynaha mooshinka ka keenay waxay yidhaahdeen garsoorayaasha madaxweynuhu magacaabay waa sharci darro sababtoo ah tiradooda 9 baa laga rabay 10 buuna ka dhigay wareedhaha 9 hadduu 10 ka dhigay madaxweynuhu waaba intii la rabay ma horumarkay ka soo hor jeedaan war horumar lama diidine sharcigaan qabin langaraabe baalgamuunde aynu langadarneesha laga gaaba waryaa been badnida ma sharcigay 9 lagama dhigi karo ku taalla ewel sharciga xeel loo badi waayo mugga hadda la shaaqshaaqayhaayo war sharcigu waa badan yahay anshax iyo xeeroosaad iyo dastuuraan leennahay war shareecadii islaamkaad ilowday sharu ku waafaqday aan ahayn sharci iyo shareeco midna kaama rabo ma taqaanide maandhow gacalya waa ku baryayaa qaraxaygada horaadkaad qurqurusiyo caanihii qaboobaa war hooyay ku qabaninin miinadaad qaraysiyo hooyow qaraxaygada arhooya gargaarkay hofaas gadigaasa ka guuro gadigay hanguur ilaahay inuusan indhaha kaa tuurin maandhow sa kugu soo korsho waa ogtahay aabbow qaraxa igade sajaxajabqajarajaxajaijigrajaf war wuxuu ku yidhi aabba jinnadaa ka wanaagsan oo kuu jiidayaa iska qanac jinnanaha ii jiidin jinna uma socotide allow ada naarta ii jiidana maandhow qaraxa igadey bilay ku haasata abbo abbo malow baxan idhay waryaa dadka waddanku sugayaad qayb ka tihiin qaraxa iska daaya qarasu indhaha kaa ride